Shukaansiga baraha bulshada ayaa mararka qaar farxad ku horseedi kara. Inta badan dhalinyarada waxay lamaanahooda kula kulmaan bogagga internetka, gaar ahaan baraha xiriirka bulshada. Hase yeeshee, badankooda waxay la'yihiin xirfadii ay guul ugu soo hoyin lahaayeen xiriirkoodii noocaasi ku unkama. Marka laga soo tago in aad baraha bulshada u gasho sidii aad jacayl u samaysan lahayd, ma leedahay xeeladii kaa caawin lahayd arrintaas? Marka loo eego xogta iyo xaqiiqda baaritaanka ee laga sameeyay baraha shukaansiga, ayaa lagu ogaaday in 90 milyan oo qof ay isticmaalaan shabakadaha shukaansiga ee loo yaqaano dating apps. Qaybo badan oo ka mid ah dadkani ayaa la xaqiijin karin taariikhdooda saxda ah. Wadamada Yurub, khaasatan wadanka UK, baaritaan ay shirkadda YouGov ka samaysay shukaansiga baraha bulshada, waxaa lagu ogaaday in 10% dadka wadankaasi isticmaalaan baraha shukaansiga, halka in ka yar oo ka mid ah dadkani ay kala kulmeen ama ay ka heleen wehel jacayl. Haddaba halkani waxaan kusoo koobayaa 7 xeeladood oo kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada. 1. Ka hor shukaansiga, ka fogow shuruudahan. Marka aad galayso baraha shukaansiga, waa in aad taxadarto. Haddii aadan ka helin, jooji. Haddii aadan jeclayn qof, mar dambe ha arkin qofkaasi. Isku day walba waa halis, waxay keentaa daal, waxay kugu beertaa murugo naftaada ah iyo tan asxaabtaadaba. 2. Waxa aad ka fakarayso aamin. Haddii aad ku fakarayso in shukaansiga qofka aad shukaansanayso uusan daacad ahayn, isla markiiba ka fogow. Haddii aad ogaato digniin, markasta u qaado si dhab ah. Waxaa jira dareen ah in laga fikiro waa qaladkayga. 3. Daraasad dhowaan la sameeyay ayaa tilmaamaysa in markii ay timaado fariimaha la isku diro, la yareeyo. Tayada ayaa ka wanaagsan tirada. 100 qof mar kaliya kala hadal online-ka sida ciyaaraha aad ciyaarto online-ka waxay kaa luminaysaa waqtigaaga. Ku bartilmaameyso waqtigaaga aad la sheekaysanayso asxaabtaada, adigoo muhiimada ugu badan siinaya kuwa u muuqda inay yihiin kuwa ugu rajada dhow. 4. Xeelada shukaansiga waa in aad khabiir ku tahay ugaarsiga goobaha ay ku badan yihiin xulashada qofka aad rabto. Dadka uu shukaansiga idiin dhex maro ayaa ah kuwa aad ka soo xulaysid malaayiin qof. Noqo qof u shukaansi taga goobaha dadka qiimaha ku leh ay joogaan. Shukaansigu waa ciyaarta tirooyinka oo kale. Soo raadi goobta halista ay taalo diamond-tu. Ogey sahankaaga. Ha aaminin ganacsiga xayeysiiyay in ay iibiyaan diamond-ta kaligood. Waa been oo sahal laguma helo qofka aad ka dhex dooranayso shukaansiga baraha bulshada. 5. Saaxiibo raadi. Ugu horeyn, xiriirka marka hore ka bilow saaxiibtinimo. Cilaaqaadyada ugu fiican waxay dhacaan markaad bilowdo saaxiibtinimo kadibna aad isku beddesho shukaansi. Dabcan waxaa dhacda in aad si fiican u barato qofkaasi inta aadan shukaansan. 6. Noqo qof dabacsan. Ha u dhaqmin si qalafsan. Waxaad u malayn kartaa inaad og tahay wax ku soo jiidanaya, laakiin haddii aad xakamayso asxaabtaada ama aad liis badan iska tuurto, waxaa laga yaabaa in aad weydo qof muhiim kuu ah oo jaanis kugu raadinayay in uu noqdo qofkaagii. 7. Noqo qof degan oo macquul ah. Wax aadan raali ka ahayn ha samaynin. 1 dhibic oo barashada internetka ma aha in aad leedahay xiriir caadi ah. Sidaasi darteed waxba kama ogid qofka kale. Barashada dadka ku barta jaanisyada lacagta ama xiriirka aan muhiimka ahayn waxaa halis ah in ay ku horseedaan in aad go'aan ku gaarto tirtirista asxaabta wanaagsan ee aad leedahay. Intaasi waxay ahaayeen 7 xeeladood ee kuu sahli kara shukaansiga baraha bulshada.